kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan waxyaabaha aynu ku soo qaadi doona waxaa ka mid ah kulamadii horyaalka Premier League Ingiriiska ee toddobaadkan la ciyaari lahaa oo gabi ahaanba baaqday kuwa toddobaadka soo socda ee horyaalka Premier League oo shaki ku jira. kulanka weyn ee toddobaadka soo aadan dhex maraya kooxaha Liverpool iyo Chelsea oo markaa la qorsheynayo in laga soo wareejiyo garoonka Stamford Bridge ee galbeedka magaalada London iyo halka lagu ciyaari karo aan wax ka sheegi doono. waxaan sidoo kale eegi doonaa kulamadii la joojiyay amaba dib loo dhigay ee horyaalka Premier League toddobaadkan oo caro xoogani ay ka dhalatay iyo xidigo hore u soo maray kubadda cagta Ingiriiska oo markaasi hadallo kulul baraha bulshada ku soo qoray kadib go'aankii uu qaatay maamulka horyaalka Ingiriiska oo baajiyay kulamadii toddobaadkan lagu balansanaa. sheekooyinkaas ayaynu soo qaadi doonaa daqiiqadaha soo aadan, balse intaan sii gudagelin waxaan idinka dalbanaynaa inaad like inoo saartaan muuqaalkan siina gudbisaan. mahadsanidin. aynu ku bilownay maamulka horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa shaaciyay in kulamadii horyaalka Ingiriiska ee toddobaadkan la ciyaari lahaa gabi ahaanba la baajiyay kadib geeridii ku timid boqoradii Ingiriiska amaba boqoradii UK ee Queen Elizabeth II taasoo la xaqiijiyay inay geeriyootay Khamiistii. dowladda Ingiriiska ayaa goor hore markaasi sii shaacisay in maamulka horyaalka Premier League iyo maamulada tartamada maxalliga ah ee gudaha Ingiriiska aysan markaasi ku qasbanayn in ay dib u dhigaan toddobaadkan kulamadooda sabab la xiriirta geerida boqoradda, isla markaana ay u madax bannaan yihiin waxa ay markaasi samayn doonaan. laakiin horyaalka Premier League Ingiriiska oo markaasi war-saxaafadeed soo saaray ayaa waxa uu shaaca kaga qaaday in dhammaan kulamadii toddobaadkan horyaalka Premier League laga ciyaari lahaa la kansalay oo markaasi dib loo dhigay si loogu maamuuso boqoradda waqtiga badan ka soo arriminaysa UK ee Queen Elizabeth II taasoo dhowaan geeriyootay. war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa u dhignaa shir saakay qabsoomay. waxaa kooxaha Premier League ay markaasi ku xuseen boqoradda Queen Elizabeth II si loo xushmeeyo noloshii qayrul caadiga ahayd iyo waxyaabihii ay waddankan u soo qabatay, isla markaana looguna sameeyey ixtiraam. kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadkan oo uu ku jiro kulanka Isniinta fiidkii ayaa sidoo kale dib loo dhigay. kulamada horyaalka Premier League ee waqtiga baroor diiqdu socoto dib ayaa markaa ka soo gudbin doonaa wixii ka soo cusboonaada, ayuu u dhignaa bayaanka ka soo baxay maamulka sare ee Premier League. waxaa kale oo la baajiyey kulamadii horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska ee isbuucan dhici lahaa, iyadoo horey loo xaqiijiyey in ciyaarihii caawa markaasi Championship-ka ee ay wada ciyaari lahaayeen kooxaha Burnley iyo Norwich City ay xalayba markaa lagu wargeliyey oo ay baaqdeen, loona sheegay in kooxahan ay guryahooda joogaan oo aanay isu diyaarin ciyaartooda. waxaa kale oo la baajiyey kulamadii waqooyiga Ireland sida uu xaqiijiyey xiriirka kubadda cagta North Ireland kadib baajintaasi lagu sameeyey kulamadii horyaalka Premier League Ingiriiska ee la ciyaari lahaa toddobaadkan, sida midkii markaasi u dhexeeyey kooxaha Fulham iyo Chelsea, Brighton and Albion iyo Bournemouth, Leicester City iyo Aston Villa, Liverpool iyo Wolves, Southampton iyo Brentford, Manchester City iyo Tottenham, iyo sidoo kale kulamadii Premier League axadda laga ciyaari lahaa sida kulankii Arsenal ay soo dhoweyn lahayd Everton, midkii West Ham ay qaabili lahayd Newcastle United iyo midkii kooxda kubadda cagta Manchester United ay u safri lahayd Crystal Palace ayaa dhammaantood dib loo dhigay. waxaana dib u dhigistaasi aad uga carooday xidigo horey markaa u soo maray kubadda cagta Ingiriiska. ciyaartooydii horey uga soo ciyaaray horyaalka Premier League ee Peter Crouch iyo Gary Neville iyo weliba taageerayaasha kubadda cagta ayaa ku cambaareeyey maamulka horyaalka Premier League Ingiriiska baajintii kulamadii isbuuca toddobaad ee horyaalka Premier League Ingiriiska kadib geeridii ku timid boqoradda UK ee Elizabeth II. go'aanka uu ku baajiyey maamulka Premier League horyaalka Ingiriiska ee toddobaadkan la ciyaari lahaa ayaa sii murjinaya xaaladda jadwalka horyaalka Ingiriiska oo markii horeba ciriiri ahaa maadaama koobka adduunka la ciyaaraya sanadkan bilaha November iyo December. warbixin ay maamulka Premier League soo saareen ayay ku baajiyeen kuna xaqiijiyeen inay dareemayaan inay tahay go'aanka saxda ah inay baajiyaan kulamada horyaalka Ingiriiska ee toddobaadkan iyagoo u arkaya in ay markaa ku maamuusayaan boqoradoodii geeriyootay. Peter Crouch oo markaasi ugu horreeyey ciyaartooydii soo dhaleeceeyey maamulka Premier League go'aankooda ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray, waan ogahay inay keliya tahay ciyaar oo ay jiraan waxyaabo ka waaweyn, bal qiyaas in kulamada oo dhani la ciyaaro toddobaadkan, mare madow ay xirtaan ciyaartooyda, aamusnaan la sameeyo, heesta qaranka, bambeyda boqortooyada iyo malaayiin dunida oo dhan daawanaysa.
sow sidaasi ma fiicnayn in lagu maamuuso ayuu yidhi Peter Crouch. waxa uu leeyahay waxaan waa iska ciyaar, waxyaabo ka waaweynaa jiro oo ka muhiimsan, laakiin bal qiyaasuu leeyahay in kulamadoo dhan toddobaadkaani la ciyaaro, mara madow ciyaartooydu ay xirtaan, aamusnaan la sameeyo, heesta qaranka la daaro, ay qaadaan baambeydii boqortooyada, halkaasi imaadaan iyadoo malaayiin ay dunida daawanayso. sow sidaas kuma qurxanayn uu leeyahay Peter Crouch. sidoo kale wariyaha markaasi taageeraha u ah Arsenal ee Piers Morgan iyo halyeygii Manchester United ee Gary Neville ayaa iyaguna soo bandhigay baraha bulshada sida ay uga xun yihiin go'aankii lagu kansalay kulamadii toddobaadkan ee horyaalka Premier League. waxay ku doodeen in kubadda cagta ay midayn lahayd dalkooda, islamarkaana ay maamuus u noqon lahayd boqoradii geeriyootay ee Elizabeth II. Morgan ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray, waa go'aan doqonnimo ah, kulamada isboortiga waa in la ciyaaro, boqoradda waa ay jeclayd isboortiga, waxaan arki lahayn taageerayaasha oo qaadaya heesta qaranka si ay u maamuusaan boqoradda sida ay West Ham samaysay xalay. iyadoo Gary Neville uu ka jawaabay qoraalkaas islamarkaana soo yidhi, waan kugu raacsanahay Piers Morgan, isboortiga ayaa ah midka ixtiraamka ugu badan u muujin kara boqoradda. marka falanqayaasha ciyaaraha qaarkood iyo ciyaartooydii hore ee kubadda cagta ayaa markaasi cambaareeyey go'aanka lagu joojiyey amaba lagu kansalay kulamadii toddobaadkan laga ciyaari lahaa horyaalka Premier League Ingiriiska. dhinaca kalena saaxiibayaal, kulankii Chelsea iyo sidoo kale u dhexeeyey Liverpool ayaa halis ugu jira in markaa laga wareejiyey magaalada London kadib markii la baajiyey kulamadii toddobaadkan ee horyaalka Premier League Ingiriiska. kulanka Chelsea iyo Liverpool ee toddobaadka dambe ayaa laga yaabaa in laga raro magaalada London isla markaana loo wareejiyo garoon kale kadib geeridii ku timid boqoradda UK ee Queen Elizabeth II, taasoo dhimashadeeda la shaaciyey Khamiistii, iyadoo ku geeriyootay da'da 96 sano, 70 sanana markaasi soo xukumaysay UK. Charles oo da'diisu ay tahay 70 jir oo ay iyadu dhashay ayaa loo caleemo saarayaa boqorka UK, wuxuuna qaadan doonaa magaca King Charles III isagoo markaa loo caleemo saarayo kadib duugista hooyadii oo la filaya in la aaso 10 maalmood oo baroor diiqa kadib. geeridan ayaa saameysay kulamadii horyaalka Premier League Ingiriiska ee toddobaadkan oo dhammaantood la kansalay, waxaana sidoo kale ay saameynaysaa ciyaaraha toddobaadka xiga, gaar ahaan kuwii lagu ciyaari lahaa magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska. maalinta Axadda ah oo ay taariikhdu tahay 18 Sebtembar waxaa garoonka Stamford Bridge ku ballansan kooxaha Chelsea iyo Liverpool markay saacadu tahay 6:30 daqiiqo. hase yeeshee waxaa hadda laga yaabaa in qorshahaasi isbeddel lagu sameeyo oo kulankaasi la geeyo garoon kale oo ku yaala magaalo aan ahayn London. waxa kale oo ay arrintaasi saameynaysaa ciyaarta Arsenal ay la leedahay Bamford ee duhurnimada markaasi bilaaban doonta, iyo sidoo kale kulanka Tottenham ay garoonkeeda ku qaabili doonto Leicester City maalinta Sabtida ah oo ay taariikhdu tahay 17 Sebtembar. Axad 18 Sebtembar oo ah maalinta la filayo in la aaso boqoradda 70 sannadood ka soo arriminaysa UK ayaa waxaa markaasi lagu wadaa in magaalada London ay markaa noqoto mid aad u mashquul badan oo ay yimaadaan dad badan oo u baroor diiqaya, waxaana laga yaabaa in la waayo ciidan booliis ah oo ku filan in kulamada Premier League-gana la ciyaaro oo ay amnigooda sugaan, sidoo kalena amniga magaalada si toos u sugaan. saraakiisha sarsare ee Premier League qaarkood ayaa hadda ku jahawareersan sidii ay jadwal cusub ugu sameyn lahaayeen kulamada toddobaadkan ee baaqday iyo kuwa toddobaadka dambe ka dhacaya magaalada London oo ay tahay in meel kale markaasi loo wareejiyo ama gebi ahaanba la baajiyo. wixii ku soo kordhana kulamada lagu ciyaarayo toddobaadka in soo aadan magaalada London iyo haddii la wareejiyaba barnaamijyadeena dambe ayaad kula socon doontaan. waad ku mahadsan tahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan siina gudbiso saaxiibada nagu cusub. waxaan leenahay soo dhowaada oo subscribe inagu dhiirigeliya. mahadsanideen. waxaan ahay Haaruun Yuusuf Qasaaro. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.